dowladda dalka Itoobiya ayaa sheegtay in maalinta berriya ee Isniinta guud ahaan dalkooda laga xusi doono maalinta mawliidka nebigiisa banaa Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyagoo intaa ku daray in fasax laga dhigay shaqaalaha. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo ka hadlayay mawliidka nebiga ayaa sheegay inay ka mid tahay xuskiisa iyo dabaaldeg loo sameeyaa nimcooyinka eebba ugu deeqay aadamaha. Wuxuu sheegay Abiy Ahmed inuu ku faraxsan yahay inuu nabad iyo caafimaad ku soo gaadho inuu ka qayb galo xuska mawliidka Nebi Maxamed. Wuxuu sheegay inuu Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu ahaa rasuulkii Ilaahay soo diray ee diinta suuban ee Islaamka inuu soo gaarsiiyay isagoo ahaa qofkii ugu caadilsanaa ee carre edeg soo maray. Wuxuu sheegay inuu garab istaagay dowladda Itoobiya oo welibana u duceeyay sidoo kalena ay ka mid tahay Itoobiya meelaha aadka looga jecel yahay. Wuxuu sheegay inaanay garaadka geli karin sidoo kalena aan la aqbali karin in laga soo horjeesto mawliidka nebiga dhalashadiisa iyo markii la dheelmiyeyba. Wuxuu sheegay in barwaaqada Itoobiya ku jirto ay keentay ducadii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo Ilaahay inoo aqbalay. Wuxuuna yidhi xuska mawliidka nebigu nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waa mid aan ku xasuusan doono nimcooyinka eebba ina siiyey oo ay ugu horrayso nafteenna. haddii aan damacno inaan taxno oo tirino nimcooyinka Ilaahay inoogu deeqay ma dhammaystiri karno. Si kastaba ha ahaatee maalinta inagu soo foole berri waxaa dhulkii islaam joogaba looga dabaaldegi doonaa haddii eebbe ina gaadhsiiyo weynaynta xuska mawliidka nebiga gaar ahaan ciidda Soomaalida oo laga dareemayo u diyaargarow ballaadhan min daraf ilaa daraf. isaguna nin u hadlayay xisbi ay leeyihiin qolyaha Ilaahay ka go'ay ee Kiristaanka dalka Lubnaan ayaa iska fogeeyay eedo loogu soo jeediyey ama loo xambaariyey oo ku olog leh inay maleegeen dad isugu soo xoomay jidadka iyo laamiyada daamirka lagu gasageeray ee magaalada Beirut. Banaanbaxa dadkan ayaa sababay soona waldaamiyey in la isu la geliyo 7 qof kuwaasoo ku naf waayay arbush iyo rabash ay sameeyeen. Ifiladan dadku u godgaleen ayaa timi markii ay kooxda Xisbullah Lebanon ku dhawaaqday in laga hortago nin garsoore ah oo faambiyaya isla jeerkaasna baadhaya qaraxii lagu maduurmay ee gugii hore ka dhacay haabada ama dekadda Beirut. Rabshadahan ayaa la sheegay inay noqdeen kuwii ugu xumaa ee ka dhaca magaalada Beirut 40 sano ka hor maadaama ay luxudka ka soo toosiyeen dagaaladii dhinaca diinta ee lagu shufbeelay dad iyo duunyaba kuwaasoo ka dhacay dalka Lebanon guyaashii 1975 ilaa 1990. nin magaciisa la yidhi Samiir Geege oo u dibinjaaqay idaacadda codka dibadda ee Beirut ayaa bitiyay in xisbiga Kiristaanku isugu yimi kulan gorad la isgeliyay oo loogu tashanayay sidii la isaga hormadoobeen lahaa qorshaha ay Xisbullah ku eryanayso garsoore Kiristaana. Geege oo ka hadlayay dhilaalo ayaa intaa ku daray xisbiga darka Ilaahay ka go'ay ay talo ku goosteen in dadweynuhu sameeyaan joojinta farataagtaaga shaqada iyo maradhaanka. iyaduna ururka Xisbullah ayaa sheegay in 7 qof ee dhintay ay dumadooda tahay xisbiga Kiristaanka taasoo dalka Lubnaan u horseedi karta dagaal sokeeye waa sida hadalka u dhigeen. wararka ka soo jirfanaya dalka Lubnaan ayaa intaasi ku daraya in dagaalku uu ka bilowday qaydka u dhaxeeya waabaha Shiicada iyo Kiristaanka iyadoo la xaqiijiyay in birta la isu afaysanayo tiyo qolo kastaaba ay soo laba dhigayso wixii ay army jaaba haysatay iyo weliba qoorqoor rasaas. dhinaca badda cas 2 markab ayaa faraciidood lagaga baxsaday gaade badeed Soomaaliya. wararka iyaguna ka imanaya biyaha badda dheer ee Soomaalidu dambaabto ayaa sheegay in xeebaha Soomaaliya lagu weeraray maraakiib gooshaaraysay oo fool u jeeday. waxaa la sheegay in maraakiibtani oo rallati ay hujuum ku ekeeyeen raga xeebaha ka jilaabanayay kuwaasoo lagu sheegay kalluumaysado badahooda la soo galay. warku wuxuu intaa ku darayaa inay maraakiibtani dirqiyo tuxun kaga fakadeen gaadaha biyaha badda ugu soo galay. 2 markab oo la guureynayay baasiin ayaa lagu soo warramaya inay ku sigteen biyaha badyarada Carbeed. 2 markab oo ay leedahay xayiigtooda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa la kulmay weerar ay soo qaadeen gaade badeed Soomaaliya oo doonayay inay afduubtaan. waxaase duulaankii Soomaalidu u jilib dhigay naaquudayaashii markabka shookaanta u hayay kuwaasoo cagaha wax ka dayay ama miciinsaday iyada oo wadaan xaab ka soo qaadi weyday cararkooda.
badjiifka Soomaalida ayaa waayihii u dambeeyay noqday rugcadaagii soo rogaal celi xilli laga geesiye gafuuray inay ka adeegtaan badaha Soomaalida kadib markii ay isugu tageen yamyam iyo qadaadweyn saan cadaalo u badan oo iyaga ula baxay burcad badeed halka ay badihii Soomaalidana ku aasayaan dhunkaal iyo dhina dhabato iyagoo sidoo kalena jariifaya kalluunka ay hodanka ku tahay Soomaalidu in la wadi jirayba waxaa la sheegayaa in gaadahani soo laabtay iyaga oo ka gabraaranaya badda dherer kuwaasoo wata saxiimado iyo huuri kala jaadjaad ah oo aad u dheereeya maadaama qorshahoodu yahay inay duulka ka soo hankagaaray carre edeg ee bililaqadoonka ka soomiyaan biyahooda isaguna ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan oo isaguna ka hadlayay geeriday ku timi ninkii Pakistan iyo isu dheeli tiray dalka Hindiya ee Cabdiqaadir Khan kaasoo ahaa wadaadada ugu sarreeya ee sameeya ama dhacarooriya sunta dhunkaasha iyo dhina dhabatada loo yaqaano nukliyeerka Imraan Khan wuxuu sheegay inuu Cabdiqaadir Khan ahaa ama la tira ahaa una dhigmayay marka la isku daro dadka ku nool Pakistan wuxuu sheegay inuu ahaa ninkii nageeyay in duulka Pakistan ay galaan geedi maalin sawaalah ama gabalgu tuura wuxuu sheegay inuu ahaa hogaamiyihii nayaayirka iyo didilada iyo rajo soo celinta dalkiisa wuxuu sheegay inuu ahaa ninkii ka baajiyay Pakistan in hinduuska dabka caabuda ku amar ku taagleeyaan wuxuu sheegay inuu ahaa ninkii geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay siday Pakistan ugu noolaan lahayd carreeda guudkooda milge iyo maamuus wuxuu sheegay inuu ahaa wiil hoogii badda ku daray ama kalwashka u yeelay sirdoonka reer galbeedka ee isku sheega waxaanay ahayn wuxuu sheegay inuu tusaale u soo qaadanayo markii uu Cabdiqaadir Khan macmacayay dhunkaasha iyo waabayda lagu madago meeluu kala soo dusay wuxuu sheegay in dhuumaha uu soo mariyay ay ahaayeen goobihii ay gaadhka dab kale ka hayeen reer galbeedku wuxuu sheegay inuu sunta ka soo rartay dalalka Jarmalka Faransiiska iyo Ingiriiska isagoo indhahooda oo shana uu kala soo degay marsooyinka jeesaska midoobay ee Imaaraadka iyo Kuwait wuxuu sheegay inaan hal qof waxba kala socon qorshaha Cabdiqaadir Khan uu ku badbaadinayay nafo badan oo reer Pakistan oo intaa wuxuu ku daray ra'iisul wasaaraha Pakistan oo hadalkiisa daba jabinaya inuu dunida u biniixin doono maanta waxaan hore looga ogeyn halyeeyga nukliyeerka Pakistan Cabdiqaadir Khan wuxuu sheegay inaanu ku ekayn dhira dhabatada iyo dhacaroorinta hubka uu sidoo kalena bartanka ama gundhada ugu jiray hay'adda basaasimo ee qaan gaadhay ee dalka Pakistan magaceedana la yiri ISI hadalkiisa wuxuu ku soo afmeeray inuu ahaa Cabdiqaadir Khan ninka la weliyo maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay Pakistan tii hore u jirtay tamaanta uu ka yahay ra'iisul wasaaraha iyo ta soo socotaba wuxuuna yiri haddii aan anigu awoodo inaan qof kale ka noqdo Pakistan waxaan noqon lahaa Cabdiqaadir Khan runtii laakiin ma awoodo taasi hooyooyinka Pakistan iyo dunida muslim la yiriba waxaan leeyahay ha ka daalina inaad noo dhashaan oo dunida keentaan isagoo kale kumanaan Cabdiqaadir oo kala wuxuu ka aqli badiyay dhammaan sirdoonada dunida reer galbeedka oo fahmi waayay hawlgalka uu intaas waday waxayna soo baraarugeen goor xeelo iyo fadhaal la kala dhigay markii aan holaday ama aan isku soo sharaxay madaxtinimada Pakistan ayaan dhowr jeer la kulmay Allah u naxariistay Cabdiqaadir Khan oo aan la tashi ugu tagay wuxuu ahaa qofka kaliya runta ii sheegay ee aan iga xishoon wuxuu igu yiri Pakistan uma baahna hogaamiye hal lug ay u taalo Pakistan lugta kalena u taalo dalalka reer galbeedka sababtoo ah wuxuu ogaa inaan wadamadaas muddo soo joogay waxna ku soo bartay wuxuu igu yiri Pakistan waxay u baahan tahay hogaamiye feejigan aragti dheer oo aan welwel ka qabin nolosha dadkiisa u jilicsan cadowgiisana ku adag oo ka kan la socda wacyiga carreeda iyo dalkaba sifooyinkaas haddii aadan lahayn iska dhaaf ayuu igu yiri murashaxnimada dalka Pakistan ugu dambeyntii daawade madaxweynaha Somaliland ayaa madal bowd ah oo uu ka qayb galay ayna joogeen dad tiiraanyaysan oo xusayay in niman ku leeday sidan iyo burcaduure gugii 1984 ka diban jaaqay madaxweyne Biixi wuxuu dhabi maran kula baxsaday in nimanka sheegta hay'adaha carreeda ee qaramada midoobay oo indhawaalaba Somaliland la daba kuutinayay inay dhibaato u geysatay dadkii laga daabalo ceelka Laascaanood wuxuu sheegay inay markay shilimada dawladda ah guranayaan duulka hay'ada la yiri ama ay ku jiraan koondaska iyo kadaaliga ay gacmaha hoos dhigtaan dalal ee bowdhiibay uskag ama maal oo uu sheegay inay u badan yihiin duulka islaam la yiri wuxuu sheegay in marka hay'adahani faraqa wax loogu soo laabo arrinkoodu galo ila meerayso wuxuu sheegay inaanay cidna waxba taaran oo ruux lugta iyo gacantu isugu xidhan tahay aanay u kala furin wuxuu sheegay inaanay mid qaxdhiisha ka dhigay waxba ku yuubin oo darbara kacay aanay waxba taaran oo duul cudur daba guurayo aanay daawo siin
oo qaar caydhi haleeshay aanay heliso siinin. wuxuu sheegay inay ka shaqeeyaan xaalad laba wajiilayna iyo foolal wada qayaxan oo ay ku antaweeraan dunida. wuxuu sheegay in qaramada midoobay ay ka shaqayso ama abuurto gabdhowga, gamashiga, ganajaha, galoofnimada, gujada iyo gudhowga. wuxuu sheegay in hay-adda qaxoontiga u qaabilsan carre edag ee la dhaho ooja ay ka shaqayso abaajiga, ilduufka, oodalululka, abaaraha, awaaraha, ooda sarawaabka, afkudhaca, abaydinimada, ilgo'a, adhaxjabka, iniqwiliska iyo waxyaabo kale. wuxuu sheegay inay abuuraan hay-aduhu daranyada, diifta, dayowga, dakharada, dambabeera go'a, dekaanka, dayaanka, dambaska cad iyo weliba digareebka. wuxuu sheegay inay intaa ku foogan yihiin sawaxa, sargo'a, saanreebka, silicduliyeynta, saqajaannimada, sadhaayaha iyo sarmaanyo gurashada. wuxuu sheegay inay ku hoyato buulkooda bele iyo intii daran iyagoo ay agtooda taallo mirdowga, madago'a, mataga, munadilka, milil abuurka, majarahabowga, madadaalo sheegga, maalarowga iyo bele iyo xirsiclow. madaxweyne biixi wuxuu kaloo sheegay intaana ku daray inaan dadkii laga deebiyey laascanood ay Somaliland u baqday nabadooda, balse aanay jirin qof la furtay oo maal laga qaaday mood iyo nool. wuxuu sheegay in maamulka Puntland oo ilmada iyo xaaska la waday dadka misana ay dhegta dhiigga u dartay 14 eelay ah oo ay ugu marmarsiyoodeen inay yihiin al-shabaab. wuxuu sheegay in hal qof lagu dilin Somaliland oo dadka xagga ah iyagoo nabad qabana ay 30 ku joogeen dalka iminkana iyagoo nabad qaba la raray.